kani waa madaxweynaha ugu faqiirsan adduunka magaciisa waa Jose Mujica waa madaxweynaha dalka Uruguay bishii waxa uu misheer ahaan u qaataa lacag gaaraysa $150,000 haddaba maxay tahay sababta uu ku noqday madaxweynaha ugu faqiirsan adduunka isagoo bishii qaata $150,000 haddaba Jose Mujica boqolkiiba 90 mushaarkiisa waa uu sadaqeeyaa kaliya waxa uu ka reebtaa boqolkiiba 10 oo u dhiganta $1,250 Jose waxa uu awood u lahaan lahaa inuu ku noolaado guriga madaxtooyada dalka Uruguay laakiin waxa uu ka doorbiday inuu ku noolaado guri yar oo ku yaala beer uu leeyahay sidoo kale Jose Mujica waxa uu awood u lahaa inuu raaco gawaarida ay raacaan madaxda adduunka aadna loo ilaaliyo laakiin waxa uu ka doorbiday inuu raaco gaarigan oo lagu magacaabo VW oo la soo saaray 1980 gaarigiisa waxa uu caan ka noqday adduunka dhowr jeer ayaa la isku dayay in laga iibiyo gaarigiisa waxaana loo gaaray malaayiin dollar laakiin Jose waa uu diiday inuu iibiyo gaarigan waxa uu sheegay inuu gaarigani muhiim u yahay isaga iyo familkiisa iyo waliba eegiisa yar Emmanuel sidaa darteeda ayaa loogu magac daray